madaxweynaha Hirshabeelle ayaa soo xiray shir maalgashiga iyo ganacsiga iyo waliba beeraha Hirshabeelle oo muddo maalin ka socday magaalada Jowhar. wariyahayaga Ibrahim Cali Nuur ayaa faahfaahinta warkaasi inooga soo diray Jowhar. waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle lagu soo gabagabeeyay shirka maalgashiga ganacsiga iyo beeraha Hirshabeelle. xiritaanka shirka waxaa ka soo qayb galay oo shirka soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. shirkan oo labadii maalin ee ugu dambeeyay ka soconayay magaalada Jowhar ayaa waxaa lagu soo bandhigayay kheyraadka kala duwan ee laga helo deegaanada Hirshabeelle. waxa ugu horeyn madasha ka hadlay kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda Maxamed Cabdi Sheekh iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Maxamed Calaale. figeela ee isugu keentay shirkadihii iyo NGO-yada iyo kambaniyadii dhammaan sidaas la'aaligeeda waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa horumarka maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan gaar ahaan degmada Jowhar aad u mahadsantiin maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leenahay hambalyo waana ugu mahadcelinaynaa waqtigooda qaaliga ah iyo dadaalka faraha badan oo aan ka warqabno oo muddada dheer maxaan ku raahdaa la filayay inay maxaan ku raahdaa halkan ay soo gaarsiiyaan waxaan rajaynaynaa inaad dadaalkii inaan ka badisaan sida ogtiin dowlad goboleedka Hirshabeelle waa dowlad goboleed aad u baaxad weyn wuxuu leeyahay beero wuxuu leeyahay xoolo wuxuu leeyahay kalluumaysi. dhinaca kale xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi ayaa sheegay inay muhiim tahay beeralayda inay helaan suuqyo ay u iibgeysan karaan dalagyadooda. waxaan rajaynaynaa waqti dhow inaan ka kaaftoono WFP iyo hadaal ku runyahay bariis dibadda laga keeno. madaxweyne waxaan kuu sheegayaa halkan bariga aan joogay problemka ugu weyn weli waa jira oo ah beeralaydu markii ay beerta abuurato markuu soo go'miro ayaa waxaa suuqa lagu soo daayaa 5 markab 6 markab oo galey iyo bariisa oo ay keento oo lacag la'aan oo WFP keento. waa ka dacwoonay dalal raflaan uga dacwoonay arrintaas weli waa socotaa. dowladda dhexe ayaa gaarsiin doonaa waa gaarsiin doonaa waxaa la rabaa dadkaani markay waxooda soo goostaan suuq inay u helaan gudaha local. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku baaqay in la xoojiyo maalgashiga ganacsiga deegaanada Hirshabeelle. in la xoojiyo sharciyada maalgashiga oo wadanka lagu maalgashanayo ganacsatada waaweyn oo wadankuna ay ku maalgashanayaan oo kalsooni ku helayaan ganacsato banaankana ay ku helayaan shuraaka ay la noqon karaan ganacsatada Soomaalida. mashaariicda loo baahan yahay wadankan in laga hirgeliyo annaga hadda warshadii isnaay in dib loo nooleeyo waxaan ku qiyaasnay lacag $300 milyan oo dollar inay u baahan tahay. $300 milyan oo dollar ganacsade Soomaaliyeed ama ganacsade ajnabi ah oo shirka noqday ma maalgasho karaan haddaysan ku kalsooneyn sharciga maalgashiga kala dambeynta dastuurka qofkii qaldamo qofka kale meeshii uu la aadayay maxkamadaha cadaaladda haddaan waxaasoo dhan lagu kalsooneyn lama maalgasho karo. Ibrahim Cali Nuur TV-ga Universal caasimadda Hirshabeelle Jowhar. aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Ibrahim Cali